ku timid abaanduulihii ciidanka xooga isla markaana uga baryay ilaahay in uu siiyo naxariistii janno jenaraal cali baashi maxamed cumar oo ku geeriyooday gudaha dalkaasi ingiriiska raali ahada dhageystayaal halka aan horay idinku sheegnay dalkaasi sacuudiga waa dalka ingiriiska saraakiishaas cabdiwali jaamac gorod ayaa alle uga baryay marxuumka in uu naxariistii janno ka waraabiyo waxaana ehladii asxaabtii iyo qaraabadii uu ka tagay rabbi uga baryay in uu samir iyo iimaan ah ka siiyo taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed cabdiwali jaamac gorod ayaa sheegay in meedka marxuumka la keeni doono magaalada muqdisho si aas qaran loogu sameeyo sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta saraakiil guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in isna dhankiisa tacsi ka diray geeridii ku timid abaanduulihii ciidanka xooga dalka